waxaan ka cudur daaranayaa sirtan maadaama aan bixiyay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. walaalaha ku xiran Daalo Khayr Media, fadlan waxaan codsanayaa haddaad ku cusub tahay kanaalka, fadlan nala saaxiib si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub aan soo dhigno. runtii maanta waxaan jeclaystay inaan ka hadlo mowduuc yar oo iska gaaban. mowduucan wuxuu ku socdaa gabar kasto oo rajeynaysa inay guursato. runtii abaayo, wax adduunka intaad joogto waxaad la kulmaysaa rag fara badan. waxaa laga yaabaa ragga aad la kulantay inaad ku qanci wayso. gabadha markaa weydiiso abaayo maxaa u guursan lahayd, markaa dhahdo waxay ku dhahaysaa calafkeyga ayaan sugayaa. waa sax gabar inay sugto calafkeedii. dhambaalkan aan kuu siido abaayo, runtii ragga fara badan oo hadda gabdhaha shukaansadaan, runtii ragga way kala nooc badan yihiin. rag fiicanna way jiraan oo gabadha qiimaheeda iyo sharafteeda garane. ragna ma garanayaan gabadha qiimaha ay ku fadhida. ninka ragga wuxuu jecel yahay gabadha inuu asaga shukaansado. xayawaanka lagu magacaabo libaaxa 90 ama 95 wuxuu jecel yahay xoolaha uu ugaadho inuu asaga cuno, uu ku raaxaysto, xoolaha uu ku daala inuu cuno ayuu jecelyahay. ayuu markastoo yuu ku raaxaystaa wuuna jecel yahay. raggana waxay ka siman yihiin dabeecadaas, ayay ka siman yihiin libaaxa. raggana waxay jecel yihiin gabadha ay ugaadhaan, ee raadiyaan, ee nambarkeeda ay raadiyaan, ee ku bixiyaan waqti fara badan, ay ku bixiyaan, ay rabaan inay mustaqbal iyo guri ay la galaan, uuna ku raaxaysto dadaalkii iyo juhdigii uu soo maray gabadha markuu baranayay mise uu shukaansanayay. laakiin su-aal baa jirta. su-aashaas maxaa waaye, gabadha hadday jeclaata ninka ayna u sheegata jaceylka, ninka muxuu iska dhaadhicinayaa gabadhan maxay jaceylka kugu sheegatay. jaceylka lagu sheegaya labada qof hal mar wax ma jeclaadaan. mid ayaa ku hormaraa jaceylka. abaayo, adiga jaceylka haddaa ku hormartay, aad jeclaatay ninka, ha u sheegana jaceylkaadii. waayo ninka ragga wuxuu jecel yahay gabadh inuu asaga raadsado, uu nambarkeeda raadsado, uu shukaansado, uu ku daalo. waxaan ka cudur daaranayaa sirtan maadaama aan bixiyay. abaayo, nimanka ragga waxay ka siman yihiin dabeecadaas, oo maxay rabaan inay daalaan gabadha, intay raadsadaan ay ku dhididaan, mise nambarkeeda say u raadinayaan, mise intay shukaansanayaan. abaayo, adigana hoos ha isku dhigin, weligaa hoos ha isku dhigin. ha noqonin gabadha markastoo nambaraheeda bixiso. ha noqonin markii aa aragto wiil qurux badan, mise wiil jir leh, mise wiil dabeecad leh, mise wiil diin leh, markaa aragto ha isdhihin kan ayaa mustaqbalka kuu noqonaya. kor iskugu qaad, weligaa hoos ha iskugu dhigin. markaa kor iskugu qaado, wiilka asaga ayaa kusoo raadsanaya. markuu kusoo raadsanaya, adigana kor iskugu qaad. inuu dadaalo ayaa la rabaa. maadaama ragga ay ka siman yihiin dabeecadda libaaxa, ee rabaan waxay ku daalaan inay cunaan, waxay ugaadha ay kusoo qafaashaan inay cunaan ay rabaan. maxaa marka adiga hoos ku dhigaysa abaayo? teeda kale, nimanka ragga markuu guursado wuu naaxayaa, muxuu gelaa nolol cusub ayuu gelayaa. gabadhana sidoo kale wuxuuna ka fikirayaa rafaadkii adiga uu kugu bartay, rafaadkii uu jecel dhab u kaa keensaday. abaayo, adigana hoos ha isku dhigin, qiimo isku yeel, kor isku qaad. diinteena islaamka hoos may ku dhigin.
diinteena islaamka kor ayay kuu qaaday, laakiin gabar kastoo nafteedii iyada naftigeeda ayaad hoos isku dhigi kartaa, iyada naftigeedana kor way isku qaadi kartaa.